isdiiwaan gelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa isdiiwaan gelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadin kale waxay damiinata حقيسة دستورية حقيسة دستورية dalkiisa muwaadin kale waxay damiinata حقيسة دستورية هاي حقيسة دستورية رشدا waxay dabartaa xidhaa dilaalkiya tuuga jecel inuu wax istaba marshaa daraaraha doorashada waxay dabartaa xidhaa dilaalkiya tuuga jecel inuu wax istaba marshaa dhammaan diiwaan gelin baa jirte gobaha u daareera oo danaha qaranka iyo bulshada dulqaad kaga qayb galo wanaaga daayicina dadkaygow dhammaan diiwaan gelin baa jirte gobaha u daareera oo danaha qaranka iyo bulshada والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرين وحن سلام يا وفتي بلارن إيه هجامين أيوه قدومية كحين كلا بعد حسب كل مية أحمد عبد الداري يوفتي بلارن وهجامين يا كم ديهين حقيه جود أفيان كي حسبك حبناها فلنتا حسبك كالصعدة برسام كحين كي مية كي دقمة الله يبضي قدوم برسام كحين كه gobolka Maroodijeex dhammaan waxaan ilaahay ku soo dhawaada degmadii allay baday oo si fiican uga socoto hawshii kaar qaadashada codbixiyayaasha marka hore waxaan soo dhaweynaynaa waftigan ballaaran uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga qaranka ee kulmiye iyo dhammaan saraakiisha xisbiga ee la socota iyo barasaab ku-xigeenka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada degmada allay baday oo aynu joogno goobtii codbixinta kaar qaadashada codbixinta ee koobaad ama ee allay baday aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa dhammaantiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye xogayaha guud ee xisbiga afayeenka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex dhammaanba gudoomiyaha gobolka ee xisbiga anna xildhibaanka golaha deegaanka iyo dhammaanba waftiga saraakiisha sare ee ka tirsan xisbiga iyo gudoomiyaha degmada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu run ahaantii waxaynu joognaa degmada allay baday maanta waa maalintii afraad oo ah maalintii ugu dambaysay afartii maalmood ee loo qoondeeyey inay halkan ka bilaabanto gobolka gabiley ay ka bilaabantay muxuu ahaa diiwaangelinta codbixiyaha marka sida aad indhihiina ku arkaysaan afartii maalmoodba sidaasuu dadku u badan yahay welina fari kama qodna waxaanu codsannay xisbiga ka codsannay komishanka guud in goobaha ay halkani ka mid tahay ee geedbalaar ka mid tahay lagu daro wakhti iyo wajaale goodaha xuduudka oo dhan oo si fiican runtii dadku u qaadanayaan ayaanu codsannay taasna insha allah waxaan filaynaa in kolley wax lagu dari doono dadkuna sida maanta sidii berigii hore si ka duwan buu dadku u qaadanayaa maanta dadku wuu baraarugay diiwaangelintii hore tanaa ka badan gobolka markaan eegna tanaa ka badan welina dadku wuu soo socdaa markaa ilaa maalmaha hadhayna insha allah aad baa loo qaadan doonaa alhamdulillah wa thanaa illah wa salaatu wa salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam waftiga uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane axmed cabdidheere xoghayaha guud ee xisbiga kulmiye barasaab ku-xigeenka gobolka gabiley barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo waxa way xubnaha heer qaran ee xisbiga u qaabilsan
guddiga doorashooyinka ama komishanka doorashooyinka oo nagala joogo axmed nuur faahiye saraakiisha xisbiga mustawo kastay leeyihiin dhammaantood waxaan maanta halkan u joognaa kormeer waanu ka soo bilownay 4 degmo oo waaweyn oo ka mid ah gobolka Gabiley oo run ahaantii aanu maanta ku soo gunaanadaynay diiwaangelintii dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si habsamiya uga socota dalka guud ahaan gaar ahaan gobolada galbeedka ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala mahad oo dhan u sugnaatay waxaanu runtii soo aragnay dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan inta aanu soo marnay gobolka Gabiley 4 degmo oo u heelan oo muwaadinimo ay ku dheehan tahay sida u qaadanayaan kaarka ay xaq u leeyihiin ee codbixinta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala mahad iskale 4 degmana waxaanu ku soo gabagabaynay degmada Allah ay baday oo hadda ka hadlayno aanu arkayna sida shaqadu u socoto iyo sida dadku isku diiwaan gelinayaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxda gobolka Gabiley heer kasto ay taagan yihiin waana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sidii sharafka lahayd ay noo soo dhaweeyeen anigoo ku hadlaya waftiga uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad intaasaan ku soo afmeeraynaa waxa weeye kormeerkayagii iyo hadalkayagiiba aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu